Assalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta oo aan ku baranayno floating column. Inta badan ardayda civilka barato iyo architecture-ka waa isla naqaanaa. Column waxa uu yahay column waa tiirka guryaha ay ku taagan yihiin, tiirarka guryaha ay leeyihiin. Si kale markaa terminology-ga loo isticmaalo goobta dhismaha waa kaabad, okay? Frame-ka guriga kuwa ugu muhiimsan oo uu ku taagan yahay ayuu ka mid yahay. Waa tiirarkan. Balse markaa si fiican u fiirido, tiirarka intooda badan sida aan naqaano waxay kasoo bilowdaan aasaaska ama bilindaha. Footing aan u naqaanaa, okay? Bilindahaas ayaa laga soo talaalaa ilaa meeshii loogu talagalay oo guriga meeshii sare ayay gaaraan. Qaarkood waxaa laga yaabaa meeshaan oo kale inay isaga ekaadaan sababtoo ah there is no reason hadda loo sii wado column-kan, okay? Balse haddaad si fiican u fiirido, meeshaan circle-ka madowga ay gashan tahay column aa ka bilaabanaya halkan, okay? Waxa ay yihiin, waxa ay taraan, waxyaalahaasaa meesha isla arkaynaa marka. What's floating column? Waa maxay floating column? Ereyga floating waa sabeyn waay, wax meel dul sabeynayo. So marka sida runta ah column sabeynayo ma aha. Waxa lagala jeeda macnaheedu waxay tahay waa column aan meesha hoose kasoo bilaabanaynin oo ka bilaabanayo meel dhexe. Biyaanada koowaad iyo kuwa ka dhexe oo kale ayuu ka bilaabanaa. So marka floating column marka hore waa nooc ka mid ah kaabadaha ama column-yada kaasoo laga dul dhiso beam iyo slab dushood. Beam-ka waxaa loo yaqaanaa markii site-ka la joogo traawe. Slab-kana waxaa loo yaqaanaa salooto. So marka traawe ama salooto dushiis ayaa laga dhisaa column-kan ee kama soo bilowdo aasaaska. Slab-kaas iyo salootadaas marka waxay noqon karaan intermediate floors, okay? Floor waxaa la lahaa sagxaddan oo kale, okay? Meeshaan lagu istaagayo oo kale. Waana meesha ugu horeyso inta badan culeyska uu kusoo dhaco, okay? Kuwa dhexe marka biyaanooyinka dhexe tusaale ahaan kaba soo bilow first floor ama biyaanada koowaad ilaa kuwa dhexe oo kale beamiska ku jiro ayaa laga talaali karaa. Intaas u faham warkaas, okay? So marka wuxuu ku leeyahay column-yada caadiga annaga aan naqaan waxaa laga soo bilaabaa aasaaska, okay? Waxayna si adag ugu xiran yihiin oo waa la isku shubo si fiican ay isugu dhagan yihiin. Foundation-kay si fiican isugu dhagan yihiin, okay? Culeyska marka wuxuu u gudbiyaa marka foundation-kaas dhulka ayuu usii gudbinaa, okay? Mechanism-ka aan naqaano waa qaabkaas waa column-ka in laga soo talaalo aasaaska, column-kaas culeyska uu u gudbiyo foundation-ka, foundation-ka markaas uu usii gudbiyo dhulka. Laakiin maxaa lagu leeyahay floating column-ka wuxuu ka bilaabanaa the top of beam or slab and rest on the floor, okay? So marka beam ama slab biyaanada koowaad ama kuwa dhexe ayuu ka bilaabanaa kan. So marka floating column-ka magacyo kale ayuu leeyahay. Hadday ka hor imaadaan ha u maleynin wax cusub. Magacyada floating column loo yaqaan waxaa ka mid ah planted column, hanging column, stop column, okay? Column-yadaas oo dhan hadday ka hor imaadaan waa column-kan oo kale hadda sidaa u jeedo floating column waay. Floor-kan ayuu dul saaran yahay, okay? Halkan waa ujeedaa sidoo kale. So uma jeedid, okay? Marka waxaa isweydiinaynaa why do we need floating column? Maxaa ugu baahannahay annaga floating column? Baahi keeni karta ma jirtaa? Labadan qodob aan kusoo koobaynaa waxyaalaha keeni karo. Waxaa jira inta badan ayaamahan dambe dhismooyinka multi-story building la dhahayo ayaa aad ugu badan dunida. Waxaa waaye biyaanooyin aad u badan 100 ilaa wax ka badan in la dhiso ayaa maanta caalamka jirto, okay? Marka guryahaas dabaqyada badan leh sida kuwa residential-ka oo deegaanka ah, kuwa ganacsiga ah iyo kuwa warshadaha kale loo sameeyo inta badan waxay u baahan yihiin an open ground story. Yacni biyaano waxay u baahan yihiin furan oo dhulka ah. Yacni ogow guriga meesha hoose hadda meeshaan waa aasaaskii footinadii waay, okay? Qaybta ground floor-ka oo dhulka yacni la siman oo dhulka yacni ka bilaabanayso qaybtaas inta badan waxaa loogu baahan yahay meel open space ah. Maxaa looga dan leeyahay marka parking space in wax lagu baakinto. Taas waa taqaanaa inta badan guriga markuu dhisan yahay haddii basement uusan lahayn inta badan biyaanada hoose ayaa parking laga dhigaa, okay? Lobbies-kana asagana waxaa waaye waa space hall camal ah oo ku yaala inta badan meesha guryaha public ah laga soo galo. Inta badan lobbies waxaa ku arkaysaa meelaha public ah. Guryahana waa loo samaystaa wax cusub ma aha. Laakiin meesha laga soo galo guriga hall ku yaalo oo awood kuu siinayo in qolalka kale aad gasho ama sometimes-na marin wuu noqdaa, okay? Marinna waa la dhihi karaa lobby-ga, okay? Meeshaas oo kale wax waa lagu sugi karaa. Waa meesha jaranjarta iyo aad ka access garan lahayd oo aad ka kori lahayd marka lobby aa la dhahaa. Sidoo kale conference hall-na waa meelaha shirarka nuucuu raba ha ahaado. Shir cilmiyeed ha ahaado, shir siyaasadeed ha ahaado, shir ganacsi ha ahaado. Banquet halls-na meeshaan si guud haddaan kuugu sheego anaga ereyadaan naguma badna laakiin waan ku fahansiinaa. Banquet halls waxaa la lahaa waa hall asagana oo events-ka kala duwan ama ma aragtay munaasabadaha kala duwan lagu qabto. Haddii ay ahaan lahayd munaasabad yacni dhalasho oo kale, haddii ahaan lahayd munaasabad yacni aroos oo kale, adiga wax walbo arrimo ganacsi xataa hadday tahay. Yacni banquet halls waa hall
inta badan cunnada iyo cabitaanada iyo waxa la midka ah waqti cayiman ay leeyihiin adiga waxba iskama dalban kartid qof lagu casuumay ayaa tahay meesha okay so marka banquet hallskana waa kuwa hallskaas oo kale waa marka maxaa u baahan tahay backing space ayaa u baahan tahay waxaa isla fahansana marka haddii meeshaan tusaale ahaan kulamada hata xoogaa way kala fog yihiin okay sidaan oo kale baakinna waa laga dhigan karaa laakiin haddii kulamadan aad ay isugu dhawaadaan backing space ma noqonayaan si marka problemkaas looga taxadiro waxaa la sameynaa in laga fogaado in kulamada aad ay isugu dhawaadaan at the same time adoo hoos ka fikiraya kor maxaa ka jiro qolalaa ka jiro okay qolalkaas maxay u baahan yihiin tiirar u baahan yihiin oo sometimes floorka aa ku celiso oo kale ama qurux ahaan aa u celiso oo kale marka haddii hoos loo diiday in kulamo badan la geliyo ayadoo markaas la rabo in backing meesha ay noqoto space furan ay noqoto korna qolal badan ay ka jiraan oo la rabo in la kala qaybiyo ama la rabo roofkii ama floorskii kale in lagu support gareeyo waxaa qasab ah marka meeshaas inay imaadaan floating column meeshaan oo kale hadda columnkan halkaan uu ka bilaabay halkaan hadduu ku jiri lahay aad ay isugu dhawaaleed backingka ma ku fool xumay lahay ama spaceki oo xayiri lahay macnaha so marka sidaas oo kale waa keeni kartaa waxaa keeni kara marka guryaha residentialka ah guryaha deegaamada ah inta badan waxaa lagu dhahaa kolomyada qaar waxaan u baahannahay inaan ku support garano floor roof hadda anaga roof manoo muuqdo oo guriga hadda kula jirnaa laakiin saqafka oo kale marmar architecturalka kore wuxuu soo codsanaa qurux ahaan yah so marka waxaa ku support garana marka columnkan la yiraahdo floating column columnkaas marka adiga baahiya u qabtaa ama waa yani waa la recommend gareeya ama waa lagu soo jeediyey inaad samayso hoos ma kasoo talaagi kartid sababtoo almost guri waa dhisan yahay roof aa marayna anaga so marka kaasoo kale ayaan sameynaya floating column oo kale ayaan sameynayna waxaan isla fiirinaa marka load transfer mechanism qaabka uu culaysku u gudbiyo columnkan wuxuu ku leeyahay floating columnka si direct ah ama si toos ah foundationka culaysku uma geeyo balse waxaa jira in culayska they transfer loads to the beam balse culayska waxay u gudbiyaan beamka ama slaabka ay ka dul dhisan yihiin loadkaasna waxaa loola tacaamulaa inuu yahay point load waxaa la lahaa culays bar keliga saaran columnkana waa hal element ma aha sida slaabkii oo kale inuu area badan saaran yahay okay waa hal meel uu saaran yahay halkaas meel uu dul saaran yahay hadhow waxaa sameynaya beamkaada markaa design garaynaysa ama slaabkaas waxaa sameynaya waxaa ku xisaabtamaya oo xisaabtaada aa ku darsanaya culays point load ah oo columnka floating column ka imaanayo inuu jiro ayaa ku xisaabtamaya waxaa lagu leeyahay marka beamka oo yacni beamkaas uu dul saaran yahay floating columnka marka la design garaynayo waxaa loo design garaynayaa beam qaadayo culayska columnka okay waa inta hadda kuu sheegaya point load ahaan u qaadaya yacni si kale haddaa kugu sheego columnka muxuu u baahan yahay wax support gareeyo foundation aan ku aqoon jirnay inuu support gareeyo balse maanta beamkan uu dul saaran yahay ayaaba u ah footing ama foundation so marka ku xisaabtan beamkaas inuu qaadi doono culeysyada columnkaas ka imaaday okay beamka marka qaado ama beamka markaas support gareeya waxaa loo yaqaanaa grider beam or transfer beam pointigan marka aad u muhiim u iska fiiri waxaa lagu dhahay inta badan beamka la yiraahdo transfer beamka cross sectionkiisa ama areadiisa way weyn tahay aad u weyn tahay birta galeydana aad u tiro badan tahay culus tahay okay yacni wuxuu kaaga baahanaa depth iyo width aad u weyn oo beamka caadiga ah ku naqaana ka weyn wuxuu kaloo kaaga baahan doonaa steel ama bir aad u weyn oo kaaga baahan yahay diameter waa weyn leh tiro badan ayuu kaaga baahan yahay okay marka khatar waa dhankaasoo kalena economically ahaan ma u fiicno so marka grider beamkan inta badan waxaa sidoo kale ula kulmaa torsion waxaa la maroojin waa awoodo maroojinaya ayuu la kulmaa maxaa lagu marka designka iyo detailingka waa marka aad cross sectionka iyo biraha galaa soo saaraysid iyo detailinka oo ah daroowinadii inaad muujiso si qofka site engineerka uu isticmaalo ama loo fuliyo waxaa lagu dhahaa very crucial way in the construction of floating column aad iyo aad ayuu muhiim u yahay marka la dhisaayo columnka noocan oo kale ah marka detailing iyo drawing ku habboon fiican la fahmi karo inaad geedo waa marka waxaa isla fahmaynaa marka advantageska uu leeyahay faa'iidooyin ma leeyahay waxtar ma leeyahay qodobka ugu horreeya waxay tahay floating column inta badan waxaa loo isticmaalaa ama faa'iido uu leeyahay waxay tahay in la fuliyo architectural requirements qofka naqshadiistaha ah ee soo qurxiyey ee soo gudbiyey naqshadan quruxda badan waxyaalaha uu u baahan yahay oo uu codsaday ayadoo la fulinayo darteed ayaa loo sameeyaa sidoo kale wuxuu ku dhahay arrintan waxay aad muhiim u tahay markii biyaanooyinka hoose okay ay leeyihiin isbaan aad weyn macnaheedu waxaa waaye dhirir weyn uu leeyahay okay hool oo kale mathalan hool wuu dheer yahay dhirir ahaan waa fahan soo ma so marka isbaankaas weyn markii qaybta hoose oo dhulka ah ground floorka markay ka jirto haddana qaybta korena qolal ay ka jiraan okay rooms ayaa waxay jiraan uu ku leeyahay on its upper floor okay xilliyadaas oo kale sida hotelka oo kale hotelka waxaa laga yaabaa qaybaha hoose
in macnaha kolomyada la yareynayo maadaama baakin ay tahay halka kuwa korena xafiisyo iyo ma aragtay qolal aad isugu dhow iyo waxaas la sameynayo so marka kor waxaa u baahan tahay columns kale ugu baahan tahay waana kuu sheegay hadhow beamka qaadi doono inuu sectionkiisa weynaan doono so marka meeshaas oo kalena useful u yahay waxtar uu leeyahay auditoriumna waxaa meelaha audienceska dadka oo wax dhegeysanayo oo kale ama wax baranayo oo kale meel ay fadhiistaan oo inta badan kuraas iyo wax loogu diyaariyo oo events kala duwan ama stage ha ahaado ama meel cilmi lagu baran ha ahaato waxyaalahaas oo kale waa qodobka labaad faa'iidada uu leeyahay waxay tahay they are useful in the construction of soft history يعني dhismayaasha la dhahayo soft history oo culeysyo aad u badan aan qaadin biyaanooyinkoodana aan badnayn oo kale waa loo isticmaali karaa waa muhiim wax dhib badan ma laha laakiin guriga mar haddii culeysyo aad u tiro badan hadduu la kulmaayo macquul maaha kan oo kale haddii aad isticmaalaysina waa in markaas economically uu ku saameyn doono oo qarash badan uu ku geli doono okay qodobka saddex marka waxaa waaye the plan on each floor can be varied okay waxaa og tahay gurigan naqshaduu leeyahay naqshada biyaanada koowaad naqshada biyaanada labaad naqshada biyaanada saddexaad way kala duwanaanayaan haddaa isticmaasho floating column sababtoo ah biyaanada hoose oo dhulka ah floating column ma isticmaalin midda first floorka oo biyaanada koowaad waxaan isticmaalay floating column so marka way kala duwan yihiin meeshaas marka maxaa ka cad naqshadaha floor kasta inay kala duwanaan karaan qodobka afraad marka wuxuu ku leeyahay the rooms can be divided and some portions can be raised without raising the whole area wuxuu ka wadaa qolalka waa la kala qaybin karaa adoo isticmaalaya floating column sometimesna qaybo kamida qolalkaada ama ma aragtay floorkaada oo qaybaha ka dhisan oo kale ayaa waxaa sameyn qayb kamid ah kicin kartaa macnaha waa dheereene tusaale ahaan musqulaha meel kuugu yaalo oo kale joogooda waa kicine adoo isticmaalayo columnkan oo kale waa kicine adoo aan wada kicinin kuwa kale okay meeshan ilaa floor waaye dhowr waxyaalo badan kaaga samaysan waxyaalaha qaar marka waa kicine marka adoo areada dhan aan kicin okay marka meelahaas kale kugu caawinaa disadvantage marka maxaa faa'iido darrada uu leeyahay maxay tahay marka faa'iido darrada ugu weyn oo columnkan uu leeyahay waxay tahay in uu la dhibaatoonayo oo yacni ma aragtay uu la ildaran yahay yacni dhul gariirka mar hadduu dhul gariir imaado khatar waayo meeshaan oo kale columnkan oo kale ma fiicno weliba waxaa la dhahaa waan isla arki doonaa insha allah beamiska support gareynaa lagu dhahay columniskan u fiirso markii laga hadlayo floating column beamiska celinaya ama islaabyada celinaya oo kale inta badan waxay la kulmaan xaddi aad u badan oo shear waxaa waa awoodaha isdhaafka bendingkana waa awood qalooc ku samaynaysa shayga oo qaloocinaysa torsionkana waa awood maroojinaysa okay si kastaba ha ahaatee problemyada marka la joogo design shear iyo bending iyo torsion haddaa ka difaacdo xataa oo aad ka daaweyso still waxaa lagu leeyahay ma aha wax la iskula taliyo ama la doorbido ma aha marka la joogo lateral loading awoodaha dhinac ka imaada maxaa kamid ah dabeesha oo kale dhulgariirka oo kale markii ay meesha ka jiraan ama area u nugul ay tahay maba la recommend gareeyo ama advisable ma aha wax la isku waaniyo maba ahanba sida marka qodobkan labaad qodobkan aan ka fahnay waxaa waaye sida hore aan usoo fahnaba waxay inta badan soo jiidataa awoodaha aadka u xooga badan sida wind iyo maxaa la dhahay earthquake okay awoodahaas oo kale iskama caabin karo wuu u nugul yahay mana ku habboona okay waxaa lagu dhaha marka it increase story displacement in buildings guryaha waxay sameeyaan displacement guriga yani point ilaa point uu ku dhisan yahay pointigan ilaa pointigaas uu ka dhisan yahay okay oo korna u dhisan so marka barabaxu sameena barabaxaas culeysyada faraha badan ha keenaan maxaa la dhahay lateral loadingka ha keenaan adiga guriga marba haddii positionkiisi wax yar uu dhaqaaqayo ama isbedel yar uu ka sameeyo waxaba ma fiicna marka maxaa lagu dhahay wuxuu uu ziyaadina story displacement guryaha yani inuu barabaxooda uu ziyaadina saaxiib halkan ayaan kusoo gabagabeynayna lagjarkeena asxaabta sidaadoo kale u baahna gaarsiiyey haddii janaalka aadan subscribe saarinna subscribe saaro laagarey videoga asxaabtaada kalena la wadaagto insha allah waana mahadsantihiin dhammaantiin